anigoo ah Xaliime Axmed Cadow kana shaqeeyay isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista Rajab Tayyip Erdogan Extikfir waxaa dhameeyay sanadkan jaamacadda cilmiga caafimaadka gaar ahaan qaybta umulisinimada waxaana ka shaqeeyaa hadda qaybta dhalmada waxaana ka ahay supervisor haddii aan ka hadlo jaamacadda inay leedahay library ardayga uu ka heli karo buug walba oo ka caawinayo waxbarashadiisa waxaa kaloo kamid ah isbedelka jaamacadeed inuu leedahay goobo nasiino oo aad u qurux badan oo ardayga markuu u baahan yahay muraajaco uu ku nasan karo sababta keliya jaamacadan ku doortay waxay ahayd anigoo helayo theory practicalna aagadiisa sababtoo ah waxay ku dhex taala Extikfir mar walbana waxaa ka heli doontiin practical iyo theory isla socod sababtoo ah waxaa mar walba gacmo furan ugu soo dhaweynaya isbitaalka Extikfir si practical dhammaystiran oo u heshiin idinkoo ehelkiin la jooga haddana waxaa idin sii dheeraad ah in aad heli kartiin shahaado caalami ah oo wadanka Turkiga laga keenay iyo jaamacad caalamka lagu aqoonsan yahay oo European ah ardayga jaamacadka dhiganayo macallimiinta casharada siinaya ay yihiin macallimiin professor ah oo si tayadooda ardayga sare ugu qaadaan waxa kale oo jiro oo ay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah ardayga in semester kasta oo helaya practical joogto ah theory markuu qaato isla markiiba jaamacadda isbitaalka uu ka helayo practical waxa kale oo jiro in loo diyaariyay ardayda gabdhaha ah meel ay jimka ku ciyaaraan oo lagu soo kordhiyay hada waxa kale oo soo kordhiyeen jaamacadda master degree ay qaadan doonaan ardayga dhameeyay nursing iyo midwifery ardayda dhameysay ayagoo joogaan dalkooda